الله يا أغلى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد وهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم نحن بني الإسلام نمتاز بصدق وهمم لأننا خير الأمم وهنا يجمعنا يدعو الأخص والأعم إلى التحلي بالقيم أطفالنا يسجدوا لواحد فرد علم لله واهب النعم صح المطر بد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وحوي مؤتمركي لباتناد اي مراكز اسكندنافيان كسوق مقامين جيرين سنة كان لغو قبطay Stockholm ودنka Sweden ومالنتي أفراد ugu dambeysay waana muxaadaradii أفراد ugu dambeysay 18 شعبان 1430 جولاي 8 2012 عنوان محاضرة وحوي إن الدين عند الله الإسلام لا أكتس واحد دين كأه دين الإسلام كوكلية يا شيخ سعيد راقي جزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلهي وحكيري قرآن كيسة إن الدين عند الله الإسلام دين تقرأ إلهي سبحانه وتعالى وأقبل يا ورالي كيهي والدين إسلامك آياتك نوح كتل مامي إنو يري ومن يبتغي غير الإسلام دينا qofka diin aan diinta islaamka aan ahayn doorta ee dabagala ama sanan ha caabudo ama sac ha caabudo ama malaa'igta ha caabudo ama jiir ha caabudo
qofka meel kale diin u doonta aan ahayn diinta islaamka falan yuqbala minhu baa la yidhi lagama yeelayo lagamana aqbalayo waxaa loo raaciyay intaa wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin aakhiro marka la tagana wuxuu ka mid yahay dadkii hoogay ee balanbalay ee beehoofay ee khasiray ilaahay qur-aanka markuu mu'miniinta ku manaysanayo wuxuu ugu tilmaamay inuu islaamkani nicmad uu yahay oo wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiinnii idiin dhammeeyey cumar bin khadaab nin yahuudiya u yimi ninkii yahuudiga cumar wuxuu ku yidhi cumarow aayad kitaabkiina ku taalla hadday annaka nagu soo degtay yaa macshar alyahuud haddaanu yuhuud aanu nahay maalintay soo degtay aayaddaas ciid baanu ka dhigan lahayn qaala maa hi waa maxay aayaddan buu yidhi qaala wuxuu yidhi ilaahay qur-aankiina wuxuu ku tilmaamay qur-aankiina wuxuu tilmaamayaa inuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diintii idiin dhammeeyo idiin buuxiyey alyawma akmaltu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدح الريموت أي إلهي تابطي دينتي ما أنت لما يوكو نعمتنا التمام كذبا قارسيو واللبا رالنا وحان إذن كها إن الدين تقادتان دينتي إسلامك عمر بن الخطاب يقول والله بويري ما أنت سودك تيوان قرانيا oo xagay ku soo degtay waan garanayaa oo nebigu halkuu joogay waan garanayaa waxay soo degtay buu yidhi yowma jumca nebigoo carafo jooga oo awrkiisa fuushamay soo degtay buu yidhi nebigu cumar bin khataab radia allahu canhu cabdullaahi bnu mascuud wuxuu odhan jiray markaa qofka idhaahda ama ku dara wax ama wax ka dhima diinta ama idhaahda arrin cusub baan soo kordhiyey wixii ka dambeeyay aayadda wuxuu ninkaasi sheegtay inuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu khaayin uu yahay oo diintii aanu inoo soo wada gudbin waayo buu yidhi qofka hadduu dhaho ilaahay hadduu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maanta diintiinnii baan idiin dhammeeyey uu qof kale idhahdo maya wax cusub baan hayaa u kaadiya ama ha noqoto mawlid ama ha noqoto xabaalo la ziyaarto ama ha noqoto arrimo kale wax cusub baan hayaanu nebiga aanu samaynin hadduu yidhaahdo buu yidhi cabdullaahi bnu mascuud qofkaasi wuxuu ku tilmaamay nebi maxamed inuu nebi maxamed nin khayna uu yahay waayda diintii oo dhan ayuu ilaahay qur-aan ku tilmaamay qofkana wuxuu leeyahay waxbaan hayaa ziyaadiya bal u kaadiya marka wuxuu tilmaamaya nebi maxamed inuu khiyaameeyey cabdullaahi bnu mascuudka ayaa maalin maalmaha ka mida ninay saaxiib yihiin oo saxaabi oo abi muusa al-ashcari la yidhaahdo ayaa masaajid soo galay masaajidkii buu soo galayo wuxuu arkay dad intay is urursadeen xalaqada u fadhiya oo ninna kabiir u yahay oo uu kolba amrayo waxay sameeyaan dadkaasi dhagxaan yaryar qururux bay soo urursadeen halkan bay soo dhigteen mid baa marka odhanaya kabbiru allaha 100 mara ilaahay allahu akbar u dhahato 100 goor dhagxaantii bay qaadayaan si odhanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar markay 100kii dhammeeyaan ayuu haddana odhanaya hallilu 100 war 100 goor laa ilaaha illa allah dhaha laa ilaaha illa allah dhaha markay 100ka dhammeeyaan ayuu haddana odhanaya subxaana allah 100 goor dhaha ninkii saxaabiga ahaa ayaa uu arkay xaaladdan inay tahay xaalad aanay ayagu dee cilmi u lahayn wuu iska tegey wuxuu tegey guriga cabdullaahi bnu mascuud ayuu hor fadhiistay qofka caalimkan ixtiraam buu leeyahay taqdiir buu leeyahay dee qiimuu leeyahay guriga laguma garaaco lagama soo saaro haddaad arday aad tahay dee waa inaad aadaaba aalib alcilmi aad la timaadaa aalib alcilmiga waad la timaadaa
ardaygiiba hor fadhiisay guriga waxa ka subxay cabdullaahi ibnu mascuud faqaala yaa abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaanow innii ra'aytu shayan qad ankartah waxaan arkay waxyaaba aan ka booday ayaan arkay qaala maa hu maxaad aragtay qaala ra'aytu qawman yafcaluuna kada wakada dad baan arkay sidaa samaynayaan qaala maa yadunnuuna annahum faaciluun talo maxay isu haystaan inay samaynayaan qaala yaa abu cabdiraxmaan innahum yacudduuna xasanaatihim waxay tirsanayaan xasanadooda xasanaadka shaqaysteen ayay tirsanayaan oo dee boqol goor buu yidhi allahu akbar boqol goor buu yidhi subxaana allah boqol goor buu yidhi laa ilaaha ila allah marka wuu qoranayaa maanta intaasoo goor baan cibaadaystay qaala awalaa qulta lahum maxaad ugu odhan weyday cuddu sayi'aatikum fawallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa innii daaminu lahum xasanaatihim maad ku tidhaahdid inay sayi'aadkooda tirsadaan wallaahi anaa ugu damaanad qaadaya inaanu xasanaadkooda ilaahay ka luminaynin masaajidkii buu markaa waxaa galay cabdullaahi ibni mascuud baa galay intuu wejiga mara ku soo duuduubtay cumaamaddii ayuu wejiga ku soo qariyey talathum wuu dhex fadhiistay raggii buu arko allahu akbar boqol goor laa ilaaha ilaa boqol goor subxaana allah boqol goor faqaala maa antum faaciluun maxaa samaynaysaan khayr baanu samaynayna ya abu cabdiraxmaan qaala wallaahi ama anakum khayra min muxamadin wa saxbah aw faatixuuna baab adalaala laba mid bay noqonaysaa buuhi wallaahi laba miduma soo gelaysaan kow ina ka fadli badan tihiin maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii waayo maxamed sidan muu samaynin sala allahu calayhi wasalam asxaabtina dee annakaaba asxaabtiyo sidan maanu samaynin diidde albaab dalaala oo dadkii lagu lumiyo oo jahannam u jeeda ayaa furteen qaaluu yaa abaa cabdiraxmaan wallaahi maa aradnaa ilaa khayra wallaahi waxaanu doonnay khayr umaanu doonnaan damacsanayne shar umaanu jeedin qaala kaa min muriidin khayrin lam yabluga waar imise qof oo khayr doondoonaya ayaa seegay buu yidhi marka ilaahay wuxuu qur-aanka ku sheegay wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diintii idiin buuxiyey sida ibnu mascuud uu yidhi maa lam yakun diinan yowmaid falaysa bidiinin wixii aan maalintaa diin ahayn maanta diin maaha buu yidhi wixii aan maalinta aan diin lagu tilmaamaynin oo nebiga iyo saxaabada aanay diin ku tilmaamin maalintaa maantana diin laguma tilmaamayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaaranayaa ilaahayga naftooda ay gacantiisa ku jirto laa yasmacu bii axad qof imaqla min haadihi alumma oo ummaddan ka mida yahuudiyan walaa nasraaniyan uma yamuutu walam yu'min bi biladii ursilt wuxuu yidhi qof imaqla ha noqdo yuhuudi ha noqdo nasraani ha noqdo ciddu doono oo aanay aaminiin buu yidhi ilaa kaana min ahli الnaar wuxuu ku dambaynayaa inuu ahli الnaar uu yahay akhrajahu muslim fii صaxiixihi nebigu marka muxuu leeyahay qof imaqla oo aan anigaya aaminin cadaabta ayuu ku dambaynaya waalciyaadu biاllah nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxaa loo soo diray jin iyo insi athaqalayn wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ucطita 5 5 baa laysiiye lam yucطahunna axadu min qabli nebi aniga iga horreeyey lama siinin buu yidhi 5tii muxuu ka tiriyey markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam qaal wa kaana الnabiyu yubcaثu ilaa qowmihi nebi walba reerkiisa ayaa loo soo dari jiray anigan buu ihi wabuciثtu ila الnaasi caama dadkoo dhan ayaa lay soo diray caddaan madow soomaali carab bakistan sudaani xabashi dadka anaa laysoo wada diray buu ihi nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuu xaqiijiyo qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas dadkoo dhan baan kuusoo diray haddaad nebi maxamed aad tahay wa uuxiya ilay marka nebigu ilahay waxaad ku tidhahdaa
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وحا قرآن كان ليقول سودة شيء سيدان إدين هانونيو وان إدين كإلاليو عذابت مركا ولا ليال وحا شرت مركا إن الدين عند الله الإسلام هالنقطة لكن دad fara badan ayaa dariiqi islaamka seegay tu nabi sallallahu alayhi wasallam dariiqi uu inoo qeexay uu inoo jeediyay oo dad baad arkaysaa maanta waxay yihiin waxay caabidaan naftooda ilaahina wuxuu yidhi afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa واركي هوديسة يا شهوديسة عابري ما ركتبوا لها يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوقفت دون نفتي سي هوديسة يا غريسدي سي فرجي سي علوش كذا ما ويدو وكذا ما وايو دوا قف عابدي شهوديسة أفرأيت من اتخذ إله هواه وحين النبي ما كان ينوت المامي إن الدين الإسلام مركي أي سود دكتي أي هاي الدين متكاملة أوردن أو بوحدة لكن في آخر الزمان وحيفر بدن سكبت بدليان وما يربط ضدكو أي كقلع سميان نين لا أورنشي ري حذيفة بن اليمان وين وضن قانا صحابي بوها نين كان وحو صحابي وحوها نينكو النبي صلى الله عليه وسلم سرتي سوكو آمين شري سرت النبي وحا هي منافقين تكو صابسا حذيفة بن اليمان أساقوا النبي مركو لنتبهوا يلقر حذيفة رقاسي هادي أي لنتان مركن لنتو هكوتو كننا عمر بن الخطاب مركن محو سمين شري جنازود والله كينبا أو صحابة دا كمدا هذا هو أنه ورا صحابي لنتبه وحو إيجي شري حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان هدو انتو نينكا سيدا او ايغو او اساغتغو عمرو كدقاق جري نينكي مركا وحو النبي كانوا ايمي وحو مركا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير تذكبوا يلي النبي محمد انت وي مادان اي خير كوريسن جرين مدبا النبي قو ايماني وحونا يا رسول الله قل لي في الإسلام كما حديث سفيان بن عبد الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك وفي رواية غيرك نبي إلهي واحد اتسطى وإيت المامتا كلمة يغفلا وإسلام كسا ميسن وأنا عدا بك وريسن قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وحتى إله بان آمني مركا طريقة كتشوك متكلا أورانا يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله وأي الناس أحب إلى الله ضدك إلهي يقول شيء عليه يانو قفض لي بدن عمل وحلا سميا وقفض لي بدن نبي يقول أورانا يا أحب الأعمال إلى الله أحب الناس إلى الله أو أحب الأعمال إلى الله أعمل إلهي عمل وقفض لي بدن قال سرور تدخله على مؤمن وعلى مسلم قف مسلم لك فرحيه وأفضل الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس dadka waxaana ugu nafci ugu wanaagsan ka dadka ugu nafci badan waxaan uga jeedaa marka saxaabadu nabiga wuxuu yiri Xudayfa bin Yaman nabiga inta yimaadaan bay khayr ka wariisan jireen wa anna wuxuu yiri wa kuntu as'aluhu 'an ash-shar wixii shar ah ayaa nabiga ka wariisan jiray makhafatan an yudrikani waxaan ka baqi jiray ka warwari jiray waxaan ka baqi jiray ka warwari jiray inuu sharka uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu tilmaamay sidaan uu soo gaarin ayaa nabiga uga wariisan jiray buu yiri faqultu waxaan ku nabi allah faqult nabi allah inna kunna fil jahiliyyah inna kunna fi jahiliyyatin wa shar intii aanad noo imanin dad jaahiliin baanu ahayn shar waan ku dhex jiray shar badan baan ku dhex jiray فجاءنا الله بهذا الخير خير كان إلهي بانو كيني خير كان إلهي بانو كيني فهل بعد هذا الخير من شر خير كان إلهي نو كيني
موحى كدن بيا شر ميو كدن بين كرا شر ميو كدن بين كرا قال نعم هابوا النبي صلى الله عليه وسلم قلت وحن كوري وهل بعد هذا الشر من خير مركو خير كان شر كدن بيو شر كان خير كلما كدن بين كرا قال نعم وفيه دخن وحيلي هايو لكن دخن باكوتشرة قلت وما دخنه دخن يجيس ومركا وامحا يعني مدمدو باكوتشرة بويلي إسلام كو يدين سوق قاريا إسلام كو مركو يدين سوق قارو مركو حكا هادلا يا النبي وحي كدن بيي وحلو مركو إسلام كو يدين سوق قارو ودادك وحا سوق قاريا إسلام مدمدو كوتشرو قلت وما دخنه مدمدو قاسي وامحي قال قوم يهدون بغير هدي الله بغير هدي ضد طريقي مدان أهين راعي يبا إيمان يبو يلي تعرف منهم وتنكر وحنا واتكفهم سوات كقادنا سا وحيابا فربضنا واتديد السابوين قلت مركا وحن كوري فهل بعد ذلك الخير من شر خير كمدمدو كتشرو شرميو كسي الدنبيا بروف في رسالة وأفر مرحلة ضاد خير بالنبي كاني شربا كدن بينيا شركة هدنا خير وحكوس مدمدو كتشرا كدن بينيا خير كان مدمدو كتشرا وحكدن بينيا شركة قال نعم شربا كدن بيبو يلي دعاة إلى أبواب جهنم دد الباب دا جهنم تاغنو دد كالا صوغالا جهنم صوغالا عذابت أي إيمان يبولي من أجابهم إليها قذفوه فيها قف كذا يستوى حدث كان ويريان وهباقيان أي ويريان أي باقيان وحيري وحجليان البابس عذابت جليان قلت يا رسول الله وحد النبي إلهيو صفهم لنا ضدك بالنوغا ورا قال هم من جلدتنا وإنه هرج إيجين بويري ويتكلمون بألسنتنا أف صومالي أما أفك أجرانسان وكهد لسان يعني أفكان عربية أجرانسان إسكو أف باتهين ويسوك أرج إكتهين إسكو أف بين كهد لنا قلت فما تأمرني إن أدركني هدي أرتسي سوغاردو محادي وأمرسا قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ضدك مسلمين تا يا إمام كودا استبتك بويري قلت فإن لم يكن فيهم وفإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام هدي آني إمامنا لهين جماعتنا آني لهين كورن قال فاعتزل تلك الفرق كلها جماعوي كان تاغن اميدو البعالن كتاغيو ولي ور حقيقه وصوب بيدا ee dadka halkan ugu yeeraya abwaab jahannam ka fogo buu nabiga sallallahu alayhi wasallam qala walaw an ta'adda bi asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik حتى أقول هذا أردت النقطة إن جد شردي جد جنتي إن قنينتي يعني اسكح لها كات جوكتي إلى أنت ملك الموت وكون إيمانية مع حديث كما كان التصيا وحين التصيا ورب إن الدين عند الله الإسلام لكن إسلام كي صحبها ولا قبيري إسلام كي صحبها ولا قبيري أو طريقية فربضان بينه مرة دمر فربضان با حجابك خفيفية رك فربضان با صلاة دي كف وقادي حتى مسائل عقدية أساس كي الدين أي قاربضاني وذيقة دي كبيرين أي طريقة دي كبيرين نبي مركا صلى الله عليه وسلم وحيابها أي إنه قد دي محينو باهن مركا ولا ليان وحينو باهن هاي مركا إنه لان هاي إن الدين عند الله الإسلام إنه نجد كي نبي إنه تشيدي أو قرى أينو مرة رهب البان هاي إنك ما صارس نبي محيي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به النسب نينك عمل كيسو شقيستي جنديسي صلاة ديسي زكاة ديسي أي جنة قارسين ويدي دير هيرو كردا شيء مري حيبولي النبي صلى الله عليه وسلم
reeruu ka dhashay reer hebel baan ahay reer hebel baan ahay dee jannada ma gelinaysa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam. marka wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ka fogaada waayo nasab iyo reer hebel baan iyo qoladaasan ka dhashay iyo meeshaasan ka imiyo inama anfacayso. maxayna anfacaya waxayna anfacaya ina akramakum cinda allahi atqaakum. carabtii baa nebiga u timi waxay yidhaahdeen nebi muxammadow ayu nnaasi akram dadka yaa ugu fadli badan qaala atqaahum lilah qofka ugu taqwada badan qaaluu maa can hada sa'alnaak taa kamaanu waraysanin ma doonayno intaad nooga warrantin qaala fa yuusuf marka waa yuusuf ibna nabiy allah ibna nabiy allah ibna khaliil allah ibraahim marka waa yuusuf qaaluu maa can hada sa'alnaak taa kama doonayno nooga warrantin qaala acan macaadini alcarabi tas'aluunanii war ma lafta carabtaad i weydiinaysaan yacni asalka carabta ay weydiinaysaan yaa ugu wanaagsan ugu dhaqan wanaagsan ugu fadli badan baad leedihiin qaaluu nacam qaala khiyaaruhum fi ljaahiliya idaa faquhu waxaa ugu wanaagsan khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum dadku markay jaahiliyadda ahayn ee gaalada ahayn dadkii ugu wanaagsanoo maantan ugu wanaagsan hadday diinta bartaan haddii ay diinta ay bartaan. marka qofka maxaa laga filayaa inaanu odhan reer hebel baanahay xaggaasaan ka imi waxaan gobolkaasaan ku qoranahay maa anzala allahu biha min sultaan. nebigu muxuu yidhi dacuuha fa inaha muntina war way quruntay way uraysaa iskaga daaya buu yidhi. abu dhar alghafaari abu dhar iyuu ahaa wuxuu ahaa nin reer miya abu dhar alghafaari baa ninka sheekaysa dhegaysta waxaanu isu haystay inuu qofkii afaraadee muslimay inuu ahaa. wuxuu yidhi abu bakar baa markaa ku weydiinaya su-aal buu wuxuu hi yaa abaa dhar waa adigan cibaadada u go-aye intaanu islaamku ku soo gaadhin ciddaan ilaahayn ma caabudi jirtay wuxuu yidhi ha qaala nacam wuxuu yidhi sanankayga intaan caabudo subaxdii u soo kallaho ayaan hor taagnaan jiray aan u tukan jiray ilaa inta cadceeddu igu dhufanaysaan suuxayo maalin walba hadda waa caynka maalin walba ilaa intuu suuxayo cadceeddu ku dhufanayso ayaan hor taagnaan jiray sanankayga buu yidhi. ninkiiba markaa nebigu u yimi ninkii wuxuu yidhi maxaa markaa abubakar baa ku yidhi oo maxaa kugu dhacay markaa wuxuu yidhi subax baan soo kallahay sidaan sanankii u caabido sanankiiyo madaxii qoyay ayaan arkay talow sanankayga yaa biyo ku shubay baan yidhi hareeraha agaegay waxaan arkay ay sii socda waxaan ku yidhi markaa kalbun laa yudaaficu can nafsihi waxaan leeyahay in sanamun laa ilaahun laa yudaaficu can nafsi ilaah aan isdifaaci karin oo ayga kaadis ka ilaalin karin ilaahay maaha maxaad samaysay buu wuxuu markaa waxaan maqlay buu yidhi nin maka ka soo baxayo nebi isku tilmaamayo oo nebi isku sheegayaan sheekadiisa maqlay walaalkay baan diray warba oroday iga keen buu yidhi in war adaa dhaankan raacayo orodo war iga keen ninka wuu soo noqday walaalkay ka warran baan ku yidhi markaa ninkan wuxuu yidhi innahu ya'muru bilcadli waalixsaan ninkani wuxuu dadka faraya ina si wanaagsan loo dhaqmo ina tolka la xiriiriyo ayuu dadka faraya qaala faqultu maa ashfayta khaliili waxaan doonayey iyo nabarkii igu yaalay boogtii igu yaalay maa daweynin wuxuu yidhi waan tegey magaaladii makaan tegey cid ka garan maayo zamzamaan ag fadhiistay buu yidhi zamzam ayaan ag fadhiistay ceelkii zamzam ayaan ag fadhiistay subaxdii baan biyo ka cabbaa maalin halkaasaan joogaa buu yidhi galabnimadii ayaa waxaa ii yimi nin dhallinyaro ah oo i arkay da inaan ahay nin hariiba carabta xataa marka hariibka minka qofka dee martida waa la gartaa laa tanharanna hariiban xaala qurbatihi faddahru yanharhu bildulli waalmixani marka wuxuu yidhi ninkii baa igu yidhi alaka daar min alcaawa seexdid ma haysataa faqultu lahu laa faqaala halumma ilay ina keen wuxuu uhi waan dabagalay guri buu i geeyey ilaa muu hadal ana lamaan hadal waan iska fadhiisanay waan seexanay subaxdii waan ka lahan maalin labaadkii sidii silag halkii aanoo fadhiyay ayuu iigu yimi alaka daar meela degtay caawa ma haystaa maya halumma ilaya ina keen 3 cisho ayay sheekadu cayn ka hayd buu yidhi abu dar
maan saddexaadkii ayuu igu yidhi war maalin walba halkan maad taagan tahay maxaad magaalada u timi faqultu lahu ataktumu canii akha alcarab ninka carabeed oo inaadeer haddaan sirtayda kuu sheegto miyaad cid u sheegi qaala laa qaala ji'ta ilaa hada arajul ninka maan u imi ninka maxamed la yidhaahdo ayaan u imi ninkii marka marti qaadayey wuxuu ahaa caliya bini abi aalib faqaala ana caliya bini abi aalib inakan anaa kuu geeniyey ninkani laakiin wuli markaan dariiqa marayno haddii aan arko wax aan ka cabsado oo nebiga duraynaya waxaan iska dhigayaa nin kabta xidhanaya soco nebiga kuma geen kara anugu wuxuu yidhi nebigiibu markaa ii geeyey nebigii baan hor fadhiistay wa abaa dar nebigii markaan hor fadhiistay faqultu lahu cumta sabaaxan yaa akha alcarab waar ninka carbeedow subax wanaagsan nebigii baa intuu qoslay ayaa wuxuu yidhi ina allaha abdalanii bitaxiyatin khayra min taxiyati salaantaadaa salaan ka wanaagsan ayuu ilaahay i siiyey qaala faqultu lahu waxaan ku idhi wamaa hiya taxiyatuk salaantaadu waa maxay qaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saan ku idhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhbirnii can maa anta fiih waxaanaad war ka warramaysid iga waran wuxuu yidhi nebigu markaa qur-aan buu ii akhriyay waan aaminay faqaala nebigu markaa wuxuu igu yidhi idhab ilaa qowmik tolkaagii orodo tag dadkaaga dacwadda ku fidi qultu laa yaa rasuula allah wallaahi la uclinannaha calaa ru'uusihim wallaahi intan qurayshta ayaan dhakadooda kaga dhawaaqayaa buu yidhi qurayshta ayaan dushooda kaga dhawaaqaya inaan ashahaatay kacbadii buu is hortaagay wuxuu yidhi yaa macshara quraysh war qurayshay war isoo eega waa la soo eegay qaala ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana maxamadan rasuul marka afar buu tirsanaya wax u tala waxa ashahaato magaalada jooga afar buu tirsanaya raganimadiisa laakiin maxay geysay inuu halkaa istaago dhado ashhadu an laa ilaaha ila allah qurayshtii way soo kaceen way garaaceen ninkii feerjilib feerka sabaaxadda wuxuu yidhi anaa nafta iga sii baxayso ayaa ninba halkaa ka soo baxay qaala ataqtuluuna rajula min khifaar war ma waxaad dilaysaa nin reer khifaara wallaahi laa tu'man lakum khawaafilakum dhaan dambe oo idin ammaan helaya ma jirto dhaan dambe oo idin ammaan helaya ma jirto waayo ninkani wuxuu ka yimi qola dhada khifaar khifaarna waa budhcad waa tuug waxay xadaan xujaajta iyo qofkii cumrada u socdayo waa budhcad wax allaale iyo subax habeen oo dhan way hurdaan subax oo dhan maalin oo dhan way hurdaan habeenkiina waxay soo dhacaan dadka dhaamanka meelaha maraya ayay soo dhacaan marka alcabaas bin cabdilmutalib wuu gartay wuxuu ninkan haddaad dishaan dee dhaan dambe oo aamin iyo noqonaya ma jiro waa inii baa ka dishan dadka wuxuu yidhi way idaayeen biyaa lagu rusheeyey meel baa leegeeyey subaxdii labaad baan soo kallahay buuhi haddana bal u fiirsan ninka ra'yigiisa halkii baan istaagay yaa macshar quraysh hadda waa ninkii shay la karbaashay ashhadu an laa ilaaha ila allah waa lay soo kacbi waa lay garaacay haddana naftii iga sii baxaysa ayaa haddana waxaa soo baxay buu yidhi alcabaas ibn cabdilmutalib 3 cisho ku celiyey sheekadii 3 cisho nebigii markaa wuxuu ogaaday ninkan in nin aad u madax adag uu yahay oo dee nasiixadii nebiga muu yeeline 3 cisho kusoo noqnoqday meeshii markaasuu ku yidhi yaa abaa dar ku noqo tolkaagii diinta ku soo fidi marka ma ii kaarta markayga maqashid nebigiibaa ninkii u baxay nebigiibaa asna wuxuu haajiray madiina bacda zamanin tawiil ayuu ninkii soo noqday markaa nebigii ayuu u keenay 2 qabiilo khifaar wa aslam 2 reer soo muslimay 2 qabiil buu soo muslimay u keenay ayadoo meeshii la joogo ayaa ila ninkani aadaabtii islaamka iyo tacaaliintii islaamka waxaasoo way dhaafeen nebigu uu ka fogaa waxay isku dhaceen bilaal waa muadinkii nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiguna bilaal wuu jecel yahay bilaal marka abu dhar alghafaarina dee bilaal addoon buu weli u arkaa cabid buu arkaa addoonkii ila waa nin madow oo shalay addoon ahay addoonnimadunbuu halkii uga soo qaado wuu ku qaadqaaday bilaal baa asna dee u dhiibay
ninkii baa ka aturdu calaya ibnati sawda war ma adoo gabadh madow ku dhashay aniga su'aal waxay igu hadal igu soo celinaysaa buu ku yiri bilaal adoo gabadh madow ku dhashay adan ninka hadal igu soo celinaysaa bilaal baa intuu aamusay qaala wallahi la arfa'annaha ila rasuulillah sheekada meel aad u xun bay maraysaa anigu arrinta nabigan gaarsiinaya nabigii buu gaarsiiyay abu dhar al-ghafari baa de waxa weyn uu haysan wuxuu yiri moogtay oo nabigii buu u yimid nabigii wajigiisa caro casaaday qaal a'ayartahu bi ummi war ninkan waxaad ku caydo hooyadii ma hooyadii ayaad ku cayday qaal ya rasuul markaa kida nabiguna caroonayo ayuu ya rasuul allah astaghfirullah qaal innaka imru'un fiika jaahiliyya waxa kugu jirta jaahilnimada kugu jirta jaahilnimadii innaka markaa islaamkii waxaynu ka soo qaadnay jaahilnimadii uu nabigu ka taga ee qabiilka iyo qurunka iyo waxaas oo dhan wadatay ayaa hadaynu aynu Soomaali aynu nahay ayaynu weli dabada haysanaa wada xalay waa maqlaysoona hablihii soo qortay ay yiri inan baa lay diiday because inan kan qabiilka ka dhashay khayrkayga kamuu dhalanin aabahay wuxuu leeyahay ninka dadkan isma geeno oo ayaguna waxay degaan xagga inakuna xaggaasaynu degnaa ilaahayna wuxuu yiri inna diina cinda allahi al-islam diintu waa mid qofku haduu aaminana de waa qof muslima inaan qofka la meermeeriyaba maaha gaalada ayaa maanta yani way ka tallaabeen ila xad cunsurinimadii way ka dagaalamaan cunsurinimadii xitaa qaarba jesus madow bay haystaan nabi madow ciiso madow ayay haystaan sheekada ay ku dhacday aniga mar aan Montreal jooga markaanu Montreal aanu joog dhalinyaro mahayn waxay haydee high schooladii bay ahayd carruur baanu hay marka waxa ii yimi in yaro 15 jira oo xabashiya wuxuu igu yiri ilaahay ka cabso oo wuxuu arkay anoo 4 saacadood baan kubadda lugta ciyaari jiray 4 saacadoodna waxaan ciyaari jiray kubadda gacanta وسدس وشفنا انت كان waa shaqayn jiray samarka inta kan iskuulka wuxuu arkoon dadku kubad iyo ciyaar caabudaya wax kale qabanaynin wuxuu war orado tago qola barta ku shireysay orado u tag waa 15 waa idma yarbaha markaa waxaan ku wari what are you talking about I'm having fun sakaydan waan enjoy garanay ciyaarahayga ma wuxuu orado soo eeg waxaan u tagay markaa qolo tabliiqa oo de inta meel dhan xidheen meel dhan ay xidheeno 15 qof ay isku yimi oo markaas dukaan yar bay sameeyeen ciimamadihii iyo de khamiiskii aswaaq suuq yar u bixiyeen suuq al-Madiina ayay sameeyeen sidii Madiina ay u dhiseen meel yar cajiib ay sameeyeen aniga waan qiirooday markaa waxaan arkay siiradii nabiga waan garanayaa waan qiirooday halkii baan isdhiibay عمامد يردن كتورة مدبر حبد كيف سيد ماشى وان خميس ولا شيء طبعا ريال دولار اللي جسينا وان حلوين تعلق لكن قعمة يشوجا شلبها أنا إياه كهوسية قرر مركان قارئ مركان صون نقطين كبدني وحنس كذا يو أن دعوة فيديو أنا جو السيديو عمامد حرنا دور عشان كدم بيسي أيه واحد يقول صوب بحي دكان 7-11 ليرتن كصوب بحي واحد يقول صوب بحي الكاه يقول صوب بحي لبنانو عض وكنت ما هديرة أنت تاتوج اسكبوا حيان قالوا ما يرح أياك أيك صعبة ويس إيجان أنا ونارك إنس إيجان ويصو عرّي رجع أرد هذا سانو خير مدن يمكوني مانت مركب وسيدي يرجع سواء خميس كون سير لابتون حسيدي مركب صباح دي ريهر جيسة أيانو سيدي ياريك ديار بهر أي عينك أوسو حيميين أي أنت تشلبه وكرنيين أي ردن إله بقى صون نقضي Jesus is back إله بقى النبي عيسى صون نقضي مركب ويتكنيا أنا عينك يقول سجوديا بدأ مركب ويرفع روح يجري but he's black ومذوب ولا لكن كني نبي عيسى وما يكاد كورمه كي كلا قلت shut up this is 90s عطاني مذوب ولا كلا تقول إسكام Jesus is back أيوة سيدي وسجوديا سكتك ماشي ما كيقول طبعا عم حدين God
ilaahayow miyaad soo noqotay markaasaan ku idhi war ilaahay ma ihie afrikaan yaro soo lumay baan ahay afrikaan ka yimid soomaaliya ordo cid kala doonta way iga tageen waxaan u soo qaatay sheekadan ayagii baa qaraar gaadhay inaan maanta Jesus madow iyo caddaan aan sheekadii maraynin ay tahay waa ilaah way ka tageen cunsurinimadii innakii laakiin waman yabtaqi ghayra alislaami diina diinta islaamkuna waxa weeye waxayna leedahay ka fogaada markaa kow inaynu taa aynu qabanno ta labaad aynu doonayna idiin sheego islaamku waman yabtaqi ghayra alislaami diina waxaa looga jeedaa systemkaynu ku noolahay inaynu bedello maaha waajib aynu nidhaahdo Canada ku noolahay sidii qof Canadian u noolaanaya ama aan nidhaahdo waxaan ku noolahay Sweden marka behaviorskooda ayaan yeelanaya lama ogola islaamka waa in ixtiraamta oo in ixtiraano oo in kala dambayna oo diinta islaamka aynu ixtiraana maxaa ugu yar waxa ugu yar kaba soo qaad مثلا khalwada inaad gabar gaala ah aad meel la joogtid aad xafiis la joogtid aad la shaqaysid kaliga ama guri kula joogtid kaliga ta islaamka kama mid aha ha orada marka this is okay because wadanka ma caanka nidaamku waa caanka girl boyfriend bay leedahay anna nin baan xaasa imaad no islaamku wuxuu yiri no waxa kamida dumarkan la salaamayo raggan la salaamayo waa mamnuuc waman yabtaqi ghayra alislam diina yani systemkan qof qaata ما أردنا سيد وحن أوكي وعرف البلد تذكر وحن كو عمل فليا لا يجوز والله وحن آمن سنة يعني وحيابي الرس سيمبل هدي أينو السمينو إن قال فربنا كاحترامي لهايا مركز سبتمبر 11 وحن شوقي مرايكن كان شوقي ما كان نعضي مركز رق فربنا عربة أيس الرصدي وحن أتجن مركز وايت هاوس كي تجن marka waxa la yiri waxa idin la kulmaya in Hillary Clinton so maxay tii marka ay ahayd Hillary maynaya may Bush gabadhi Bush way la kulmaysaa maxay ahayd magaceedu no tuu qabay ha soo waa gaalada iska daaya xamaleen adigu muslimiinta la kulantay muslimiintii marka صفي استاجين مركا وايو وامس وإمامدي وادتك الدعاء ده مقالة شوقي ووحي صفا لشتى قبردي مركا يدون ويصوم مرتي ويسلانتي مد مركا ماشى شوقة أيا سرق عنتي سوفرين واي بس كمركا ماشى مرة وحي دونيا إن قبردني ده احترام تو تقدير بكدونيا recognition بكدونيا how are you nice meeting you كي سلامي واي أي صورتها كذا هذا هو كي يقول سلامي واي أيادي we don't shake hands with women بكويري مركزي ساين تكوك على وقتي تري what about these كون وايو مسلمين معها مركزي أنت كون أي سجى صو أكتي أي تري I respect your principles وحن احترامه principle أدو حنبار سنتي آمن سنتي أي داعات كأ تحسن احترامه ويتري مركز رجي مش يستحي الدنيا إني ده لا احترامه أو ده تقدير لسيو هدي ما حاجة ده تنك ورد تنك ما يجرين نينك قري أكتي أي وقت السيسي أي الله هذا شيء ونينك قاعد تكلابتي وايو أصله إسلام كي وحو هايستا دين أهان وما هايستوح يعني وحس كبلا معناه مرة مساجين ومسلم كنا قنيو دبدنا وكنا قنيو الرين كله وحن كسو قلنا ديا شكي رفني أنا يقول عضي وكسب سلانتا بري وحن وشوقني مقال الله هذا وحن كالجري وكندا مركا وحن اللي يقول قريك إن النقضاء نينكا Islamic Islamic studies كيو religious affairs كمسلمين تكسابسن جامعة واحد لكرا مركا حفيز بيسيين دور من البيجيم مركا ونسرعنا
marka waxay University of Calgary iyo State dhowr meelood bay ahayd marka ninkii meesha dadka wuxuu yiri okay xafiis baan ku siinay laakiin waan ku soo barraadee meelahan cidda joogta hadhow sidaanay oranin qofkan waaciyo marka jazakallahu khayr Allah yani ilaahay soo hadeeyay uu ka kaciyo nin wanaagsan baa runtii waxaan sharadka ka dhigay marka waxaan ku yiri we going to see a lot of women dumar badan la kulmayna waxaad ku tiraahdaa sici dadka dumarka ma salaamo marka judha markuu soo goornaya hi everybody this is Imam Saeed he's here as a chaplain but he doesn't shake hands with women dumarka ma salaamo intaas waa muqaddimadii waa judha la dhiibayaan salgoni how are you nice to having you here we pleased to have you waa gaalo iyo soo dhaweysay tii ugu darada waxay tii ugu dambeysay xafiis baanu galay 4-5 xafiis ka soo horjeeday ahay waa la soo baxay hi everybody hi this is Imam Saeed he doesn't shake hands with women dumarka ma salaamo hayyak mid ilaahay ibtileeyay oo halkaa joogta oo daaqadan ka arkayo dad dumarkan marka cadceedu ay soo baxdo maryaha dhigta ah oo kabadha dheer xidhan ay halka telefoon bay ku jirtaa mar dambo arrintii si baxayso arrintii si dhamaanayso ayay ka soo baxday xafiiskii way soo carartay hi bitri marka san ku I'm sorry I don't shake hands waxba ma labaytay way qabsatay dhag way igu dhagtay anigu marka gees allaaliya geesan u dhaqaaqan garan waay miyaan iska qabta waan iska riixa miyaan daaya maskaxdi marka shaak baa noqday waayo mad filayn moogtay shaak baa noqday marka saynis baraas ka dhamaysa dad u kaadi hada sida taabatid waa mushkiladeen halkii man istaagay sidii askari sidii guurwada halkii man taagay dadkii meesha joogay qof hadla waa laga waay shibta la wada galay waxa laga soo qaadan waxba dhicin saaran okay marka warramo oo midka ka soo daba cartay adaba tii karaatiri how are you Imam Saeed saytiri he doesn't shake hands he hugs masalan marka waxaan uga jeedaa soo gunaanada sheekadaas waxaan uga jeedaa waman yabtaqi ghayra al-islam hadaynu nahno waa in islaamku ay noqotaa noo noqda waxaynu ku dhaqano haday noqoto guriga haday noqoto dabada haday noqoto dad gaala lama hadlayo oo lecture u soo jeedin maayo waxaan u soo jeedinayaa lecture dad muslimiin oo shahaadadii garanaya oo diintii garanaya oo wax walba garanaya laakiin waxay naga yara dhiman xagga muaamalada islaamku afkun maaha وعمل يا معاملة وجزاكم الله خير سبحانك سبحان رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين